إن مدن عبد الرحمن عبد الله واحد كقيب قشين شير بروكسل أو تضبط كان هذا دماضي كقب صومي دلك بلجيم شركة سمحوك صاب صنع. بسم الله الرحمن الرحيم مرتوى ما تنتهي ولا شركة عن صومر نمالين تجمعه نوحو كسب سنة إن لقوا هذا الله دباتوين كي كدعي كوبي سجاشن كي قبل كينا كدعي dadkii la dhibaateeyay dadkooda la laayay ee la xasuuqay amba dhibaatooyinkooda ku timiday ee la iska iloobay dad in wax la dilay iyo in kala ba war loo hayn ama in qof la dilay iyo neef xoolayn la dilay ayna dad ugala duwaneen marka taa awgeed waxaan garanay haddaanu nahay maamulka goboleedka awdal state aanu nahay mar aan shir wada galay aniga iyo madaxweynaha aanu aad uga wada tashanay ra'iisul baarlamaanka waxa aanu garanay in aan shirka jimcaha tago aanan wixii aan markaana looga baahdo ka sheegano aanan gudbino wixii aanu haynay qoraal amba waxyaalihii aanu ku cadeynay in uu gobolka yagaas bishii labaad maxaan ku iraahdaa February 4 1991 in dad masaakiina 10 saacadood gudahood lagu dilay 700 in ka badan lagu laayay oo xaasas idil ay ku dabar go'een taana waxaanu ka cadeynay marka dacwadeedii waanu gudbinay waxaan sugaynaa iminka kulanka dambe oo aanu kaga kulaniminay sidii marka dacwadaha la baaro ee la dirso wixii go'aan ka soo baxa kulanaduna hadday bilaabmeen waxa weeyaan ilaa aanu ka mila dharino oo nimankii waxa geystay falalka geystay ee dadka yaga sida xaq darrida u dilay aanan welina ka hadal in aanu horkeeno maxkamadaha adduunka aanu herkono ayna ka jawaabaan wixii falka ay noogu geysteen ama dadkayga ay ugu geysteen wixii u geeyay sababtiina ay ka cadeeyaan ayaan miiska soo fariisinayna insha Allah ta'ala ilaahay hadduu shir kale ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Paris ee hadda aan joogno hotelkan hadda maad aragtay dhabarkaaga ah shirkaasi muxuu ku saabsanaa waad tahay shirkan wuxuu ku saabsanaa in horta jahliyada ka kooban beesha degta maamul goboleedka awdal state degta in aan ishorta wuxuu ahaa qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa xog waraysi lees xog waraysanayay su'aalo badan oo dadku qabeen si looga jaahil tiro teeda kale in kulanadii sidii loola kulmi lahaa amba loola fadhiisan lahaa dawladda Faransiiska iyo maamulkeeda loola fadhiisan lahaa loogana dhaadhicin lahaa waxa ay tahay maamul goboleedka awdal state hadafkeedu wuxuu yahay dhibaatada ka taagan gobolkii wixii laga qaban lahaa sidii looga shaqayn lahaa horumarinta wadanka iyo dhanka saadeen noqoto dhanka waxbarashada dhanka nabadgelyada ay noqoto in wixii uu gobolkaas xaq ugu leeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha adduunkaba ugu leeyahay in meel hiblaayaha la idin soo maro in haddeetoo lagu gudbi doono oo wixii maamul goboleedkaas dantiisa iyo taladiisa laga wareysto wixii gobolka Gabile Awdal iyo Saylac wixii taladeeda iyo horumarkeeda laga wareysto amba la weydiiyo dadka dhulka leh ama ilaahay dajiyay iyo maamulkeeda wixii ay dantooda tahay oo lagala wareysto lagala xaajoodo nin kale loo daba fadhiisan ama nin kale dantooda loo weydiiyo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay